السلام عليكم guys فيلمكeen waxa ku bilaabaya arday khaaqa oo macallimadu ay tahay qof caadi kaliya ardaydu waxay isku dayayaan inay macallimada cunaan laakiin se guys macallimadu ruma hayso hadda carabkeedii deera ay mid kamid ah khaaqdi ku soo taagtay macallimada laakiin way dareentay macallimada halkaas oo ay naxdin oo isla talo maxaa qaldan maanta laakiin se ma oga macallimadu dabin inay ku jirto oo halkan dadka ku jira oo dhan ay yihiin dad khaaqa oo isbedelay hadda waxay isku dayaysaa macallimada inay casharkii qorto oo samuuradii ay u jeesatay laakiin se guys ardaydii mid kamid ah ayaa kor hawada u galaysa dhammaan ardaydii kale oo dhan hawada ay galayaan iyagoo wajigooda ka muuqato inay isbedeleen oo ayna ahayn arday caadiyaba oo ay yihiin khaaq hadda ay ku soo dhaqaaqeen laakiin se macallimadu dareen ayaa galay sina way u naxsan tahay halkaasi oo ay u soo dhawaan marka dambe hadda inay qabtaan isku dayaya macallimadu way naxday haddana waxay aragtay ardaydii wada fadhiya mid kamid ah ayaa ku tiri bax macallimadu way fahantay in meesha wax qaldan yihiin ka baxso way baxsatay halkaas oo ay meeshiis kaga carartay laakiin se guys ardaydii oo dhan way wada qosqoslaysaa ma isleedahay ka xaraamsanayeen mise waa khaaq caadiya bal commentiga nagula wadaag maxaa kuu muuqda haddana waxaan aragnaa gurigii agteeda iyadoo ay ku sugayaan ardaydii xilli habeennimo haddaba ardaydii fasalka ay ka dhigi kar lahayd casharka halkana la wada joogaa arday rag iyo dumar wada khaaqa hooyadeed bay raadinaysaa laakiin way weyday meel ay hooyadeed martay laakiin se guys iyaga ah iyo hooyadeed halkeed geyseen bay ku tiri hooyadeed halkaasaa la wada eegayaa wata halkaas saaran hooyadeed way maca salaameynaysaaba aad ayay macallimadu u qaylaysaa laakiin mid kamid ah ayaa ka odhanaysa ka tuur meesha islaanta ka tuur mid kamid ah kuwii khaaqday wuxuu isku dayayaa inuu ka tuuro meesha laakiin se hadda ayuu taraankii yimid markuu taraanku saa u yimaado ka tuur ayay ku odhanaysaa hadda ayuu saa uga tuuray macallimadii orod ayay soo wacday laakiin ma badbaadin karto isla markiiba waxay aragtay iyadoo dhimatay islaantii laakiin se guys macallimadii aad ayay u cadhoonaysaa midina way la soo baxday halkaas ay isku dayayso dhammaan inay wada layso maadaama ay ka dileen hooyadeed sabab ay uga dileen xataa ma garanayso iyaguna halkan ayay ku wada qosqoslayaan guys hadda waxay isku dayaysaa inay disho mid walba way ku taagaysaa laakiinse markii saa ugu dhufato midida ayuu mid walba wuxuu noqonayaa hawo caadiya middan ayaaba marna waxay noqonaysaa qof caadiya marna khaaq laakiin marka dambe go-aan bay qaadanaysaa oo way ku dhufanaysaa way la dhacaysaa mid kale ayaa soo cararaysaa way ku dhufanaysaa hawo ayay kala raacaysaa mid kale ayaa soo cararaysaa iyadna way ku dhufanaysaa marka gaas ay ku dhufato way baaba'ayaanba sidii qof bini aadan oo dhiig ka soo yaacaya maaha dhammaan waxay isku dayaysaa inay dhammayso wixii oo dhanba aad ayayna u cadhoonaysaa waayo waxay ka dileen hooyadeed sabab ay u dileen way garan laadahay guys way yaabantahay macallimadii mid ayaa lugta haysata laakiinse ma cafinayso iyadna way dilaysaa halkaas ayay ku dishay guys markii soo dhammayso ayaa waxay imanaysaa suuliga markay sidaa uga soo baxdo ayuu albaabkii suuliga ku soo xirmayaa laakiinse si aliisa uga soo baxday garan waayaysaa albaabkii ayaa ku xirmay laakiinse guys waxbaa soo socda halkan leyrkii oo dhan ba wada damaya macallimadii way yaaban tahay laakiinse guys waxaan malanaya mar labaad inay ruuxaantii manaso ama khaaqdii hadda albaabadii suuliyaasha oo dhan baa is wada qaraacaya oo gebigoogaba is wada furaya marna xirmaya laakiinse macallimadii naxdin awgeed gidaar ayay isku nabasaa guys way yaaban tahay macallimadii waxay isleedahay waxaan meesha kugu dhex qabtay waa maxay laakiinse guys qasabadihii baa la wada furay haddana oo kor biyihii baa wada daatay laakiinse wax socda iyo dhan ay wax ka socdaan bay garan lahaaday haddana imigana meel baa lasoo furay guys baashaas birtaas ayaa la rabaa in laga jaro laakiinse way ka gabanaysaa agteeda ayay birtii ku dhacaysaa guys hal mar baa suuliga lagu soo xidhay gebigeegiiba laakiinse
waxaan malaynayaa inay tahay wixii ay laysay. Hadda hal mar ayuu dhiig soo wada yaacay meeshii oo dhan. Guys, macalimadii moraalkeygii iyo sidii ahayd buu is wada bedeshay. waxaan malaynayaa inay waxaas dhex galaan baa suuragalaba. aad ayay u qaylsan laakiin cid maqlaysaa ma jirto. waayo suuliyadu waxay ku yaaleen xagga garoondiga ama dhulka hoose. Guys, macalimadii ayaa soo baxday iyadoo ay wax ka sii noqdeen, laakiin dadku waruma hayaan, waxay moodayaan inay waalatay. laakiin guys, waa la galay. sidii u eegaysa ma aragtaa, mid ka mid a kuwii qaaqday ayaa halkaa joogta. iyadu way arkaysaa laakiin dadku ma arkayaan. daqaaqda guud bigaas iska ciyaaraysaaba, laakiin si dadku ma arkayaan. hadda ayaa gaarigii lagu soo xiray halkaas oo loo qaadayo cisbitaalka. laakiinse guys, dadkii oo dhan wax ku dhacay ma garanayaan macalimadii. laakiin macalimaddu bilowgiisaynu ku arkanay arday dhan oo fasal ku jira oo wada qaaqa ayay istiri wax u dhig, laakiin baladii ka raacday wataa hadda. guys, kur nool baaba la soo jaray. kur nool mid ka mid a ayaa waxay u hanjabaysaa macalimadii, laakiinse waxay ismoodaysaa macalimadan laftarkeega ayaa wax ka qaldan yihiin. midi ayayba soo saaratay. mididii iyadoo gelis laayatii kale iska qabato kor ayay u booday, laakiinse mididii waxaa is leedahay geli. hadda mididii markay saa ula soo kacday tiraahdo soo saar, ayay labadeedii gacmood baa saa iskugu dhegay. guys, waxay is leedahay iska fuji, laakiin gacan bayba iska jartay. iga tag, gacanta bayba karsabaysaa. cuntadii bay ku dhex dhacdayba gacantii. ninkan wuu yaaban yahay, saas u dul taagan yahay. laakiinse gabadha waxay ku haysatay ma jirto. keliya waxaas lahayd u dhamee oo hadal ay ka xanaaqda ayay ku tiri. guys, hadda laakiin gacantii bay is jartay. mid ka mid a dadkii joogay meesha oo ninkaas ka mid ahaa ayaa dul taagan. waxuu is leeyahay maxaa qaldan, bal la hadal. laakiinse halkan ayay neeftuuraysaa oo dhiig badan ayaa ka soo baxay. wuxuu isku dayayaa inuu weydiiyo maxaa idinka dhexeeyey gabadhan, laakiinse waxay ka odhanaysaa way sakee maagtuun, waxaa wax naga dhexeeya ma jiro. guys, gabadhii qaaqda ahayd waxay isku dayaysaa inay mar labaad soo kacdo. wuxuu isku dayayaa ninkanna inuu marmarsiyo keeno oo boorso ayuu ka soo saaraya alaabo iyo lacago. wuxuu ka odhanaya lacagta ayaan ku siinanaa, laakiinse waxaad wada jooji, anaana ku soo daweynaya. laakiin iyadu waxaa muuqurayso. guys, hadda ayuu wuxuu isku dayay inuu boorsadii furo si uu ugu qanciyo inuu isugu daweynayo, laakiin waxaa iska dhaafto. guys, laakiin lacagtii markay soo aragto iyo wuxuu u sheegayo midna iyadu waxaasi kuma socdaan. hadda hal mar ayay inta indhaha saa ugu soo eegtay ku gubto ayay indhahaas ku qabanaysaa. guys, markay indhahaas ugu qabato ay xogaa aamusaysna ku qaylqaylayaa. maxaad indhahaas ku qabanaysaa? hal mar ayay indhaha soo qaadaysaa, kor ayuu boodaya. guys, naxdintii mid wuxuu soo qaadaya wax ula dhacayaa gebigeygaba, waayo hal mar haddii kusoo fakato way dilaysaa. halkaas ayuu gabadhii qaaqda ahaydna ugu dhameeyey. guys, fadlan haddaa ku cusub tahay subscribe noo saar.